Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamayaa Soomaaliya meel kasta ay joogto. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa meel kasta oo iga dhagaysanaysaan ku caafimaad qabtaan. Maanta waxaan doonayaa insha Allah inaan ka yara hadlo maxay heeday marka wadamadan gaalada aynu nimi marka hooyooyinka iyo waalidka carruurta laga qaato. Yacni Soomaali horta hadaynu nahay yacni been wixii oon iyadoon la fahansanayn ayaa waxaan kugu yiri la buunbuuninayaa qof baa ilmo laga qaatay. Horta waxaan Ilaahay ka rajeynayaa dadka carruuraha laga qaatay Ilaahay inuu uga soo fududeeyo oo u soo hawleeyo kuwa aan carruurahooda guryahooda u joogaan Ilaahay ka indha saabo oo aan maaragtay Ilaahay u keenin. Laakiin marka aynu leenahay Soomaalidu ayaamahan oo dhan waxaan ku arkayaa social media hooyo ilmo laga qaatay hooyo ilmo laga qaatay lacag ha loo soo ururiyo qof dariskaaba ashkateeyay. Yacni waa waxyaabaha ay dadkeenu iyagoo wixii fahansanayn ay isugu sheekeeyaan. Haddii saas qof kasta oo ku yara nibcan oo kaa heli waayo ama daris ha noqoto ama family ha noqoto oo iska kaa sanifaaba intuu ku waco kuwa carruurta maaragtay kaa qaaday oo lagu imanayo carruurta laga qaadayo magaalo dhan baa carruur laga wada qaadi lahaa. Yacni horta dadkeenu inay fahmaan insha Allah isku dayaan inay fahmaan. Waa laga yaabaa inuu qof dariska ama marmarba dad isqabo oo ilmaha iska dhalibaaba is ashkateynaya. Yacni way ku imanayaan kuwa carruurta qaata xaqay u leeyihiin inay markastaba bal eegaan inay waxaan wax ka jiraan iyo in kale way ku imanayaan way ku warwareysanayaan. Laakiin wax carruur intay ay kaa qaataan ay markaa ku qaadayaan ma jirto. Yes way kula soo hadlayaan way imanayaan guriga waxay soo oranayaan balde waxaan inay wax ka wada jiraan iyo inay wax ka jiraan iyo in kale iska ogaada. Laakiin inta ku yimaadaan carruur ma qaataan. Marka hore waxyaabo badan ka horeyso waxyaabaha ugu horeeya ee dadkeena aanay fahansanayn waa iskuulka dadka carruurta badanka u gudbiyo kuwa carruurta waa iskuuladuna maxay ahayd waxa ugu badan ee dadkeena yacni waqtiga Soomaali hadaynu nahay adduunka meel kasta waxa habsan walaa balan ha noqoto maxay ahaydey balan kasta iyo wax kastaba inaan dib uga dhacno aynu dhahno yacni Soomaali oo dhan way soo daahdaa. Laakiin wadamadan aad timi gaalada kama shaqeynayso Soomaali baan ahayo 20 mirir ama 5 mirir ama ilaa xitaa 3 mirir 4 mirir ahaato. Haddii waxaas markasta wax joogta ay yihiin waxay ku oranayaan what is the problem? Maxaa dhibku ka jiraa? Marka iyo ilmahaaga oo maxay ahaydey ama dharkiisa halaysan yahay ama maxay ahaydey oo uska markasta isagana lagu arko taana way yiraahdaan qof ilmahan uu dayacan yahay. Laakiin maasha Allah Soomaali hadaan taas ma u badnin oo inay maxay ahaydey ma u badnin inay ilmuhu uska ku yimaado uma badna badanka carruurta lagu qabsadaa dadka waa goorta xilliga la keenayo. Inagu hadeen 2 mirir 4 mirir 5 mirir daahna Soomaali hadaynu nahay wax weynina lama aha. Laakiin dadkan way la tahayo wixii way ku ururinayaan way kula hadlayaan haday arka sheekada inay meeshii waxba iska bedelin deetana kuwa social work la hadlayaan. Kuwa social work markay la hadlaana iyaguna way ku wareysanayaan waxay ku leeyihiin what is the problem? Xaguu dhibka ka jiraa? Caawinimo kale ma u baahan tahay? Maxaa dhibaatada markasta ilmahaaga inuu iskuulkii ka soo habsaamo ku kalifaysaa waa maxay? Waxa laga inaan dhibaato haysan laakiin Soomaali hadaynu nahay saacadeen 5 mirir baad doonaan dambeeyaan. Marka taasa waxyaabahaasa maxay ahaydey loogu firfirsadaa waana kula hadlayaan way ku wareysanayaan way maxay waraaqay soo dirayaan telefoonay soo dirayaan wax laga yaabaa half of the time telefoonka iyo waraaqaha la soo diraba maxay hooyadii warka ma hayso af ma garanaysid. Yes laakiin taas iskuusku ma noqonayso waalidaa tahay wadan gaala aad joogtaa. Yacni waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaali hadaynu nahay inaynu isbedelo ay waxyaabahaas oo kale ugu fiican. Ilaahay wuu ku qoray inaad wadankan ubad ku dhasho laakiin wadankeennii oo kale ma aha. Haddaad disho haddaad caydo haddaad xitaa jaarka iyo dariska xitaa ay sii dili jireen ma joogno. Waxaanu joognaa wadan lagu fiirsanayo ubadkii lagula dhalay. Laakiin waxaan diidayaa marka Soomaalidii already sheekadii too late noqoto dadkan warning badan iyo jaanisyo badan ay ku siiyaan
marar badan ay kula kulmaan yacni beenta dadkeenu isugu sheekeynayaan ilmaha laga qaatay hooyo ilmo inta maanta lagu soo dacweeyo beri inta lagu yimaado lagaa qaadanaya ma jirto des dhibaatooyin des cillado des problem baa marka hore meesha jiro laakiin way kula hadlayaan jaanis badan way ku siinayaan dee markay xeedhiya fandhaalka la dhaceen ayay soomaalidu ku oranayaan qofaa maxay aheeday ilmihii laga qaatay social media ayaamahan xoogaa ugu arkayaa caruur baa laga qaatay maxay lacag ha loo ururiyo maxaa u moodaa wadan inta qof kow lagaga siiyo wadankeeni deetana inta laaluush la bixiyo lagu kala tegi jiray ma waxyaabo badan oo wadamadeeni aynu samayn jirnay oo wadamadan kuu shaqaynaynaa jirto lacagaad hooyo ilmo laga qaatay u ururisa macno weyn ma samaynayso ilmihii ma soo celinayso waa inaan marka u horeysa waa inaan waxyaabahaas kan oo kale inaan ka taxadirno hooyadu waxaa laga yaabaa inay ilmo yar haysato walac tahay oo xilli ilmihii ay ka xanuunsan tahay oo ilmihii iskuulka geyn karin ama ay ka daahayso maxay ahayd ilaahay waalidu kaa dhigay mas-uul ah maalintaa waalid noqotay mas-uul ah ku saarmay dariskaaga ma waxaa weyse qof oo kula dariso kula iskuul ahoo kuu dhowo tiraadadina heblaaye bal maanta ama dhowrkaa jeere cisho aan xanuunsanahay ilmaha iga soo doon marka intaa carcaranaysaan marka dambe ee sheekadii xeedhiya fandhaalka la dhaceen lacag iyo wax ururinaysaan soomaali haddaad tihiin hooyaduna hadday markaa iyana dhib ku jirto ama walac tahay ama arkayso iskuulkii inay ka daahayso ama imanaynin xaq waxay u leedahay iyaduna inay gabadh walaasheeda ama dariska ah ama ay tiraadana waan xanuunsanaya bal iskuul ba inta badan caruuru tagaan inta isla dariska ah iige haddaanad xitaa aanad isku dhaweyn waad u kaxayn kartaa marka waxyaabahaas oo kale soomaalidu isku caawin karaan iskaga warhayn karaan wax weyn ma aha haddaa waa lacsan tahay oo xanuunsatay inaad tiraada heblaayo ilmaha iige yacni waxyaabo badan oo ceeb ahayn ay dadkeenu ceeb ka dhigaan ilmaha iige caawinimo haddii wax yar iyadana maalintay teeda ku timaada ee saasoo kale ama u walacsan tahay ama u xanuunsan tahay ayaa iyadana u suubinay wax weyn ma ahan balaakiin maxay caruuraa la qaatay waa wax laga calool xumaado waaye ilaaha ha usoo fududeeya dadka caruurta laga qaatay balaakiin waxaan diidanahay soomaalida marka xeeriya fandhaalka la dhacaan wixii too late tahay lacagaha loo ururiyo hooya ilmo laga qaaday social media gaaladanu saa uma shaqeeyaan wadan gaala aynu nimi ilaaha inoo qoray inaynu nimaadno balaakiin waa inaynu feejignaano dadkan ilmaha waalidka u ay hooye aabba u ha iyagu isugu yeeraya dadkanoona maxay ahayd idinka qudhiin wax wanaagsan ma suubinaysin haddii maaragtay tolaad ka dhalatay in adeeraa leedahay abtiyaa leedahay cid uun in laydiin garnoqo beriga hore dadka saasaa laysugu garnaqi jiro wax lagu kala dhamaysan jiray haddii ay isfahmi weydaan ha laydiin garnoqee dad idinka labadiinaba ku kalsoon tihiin isdhex keena dhibku meeshuu jiro ka hadla laakiin intaa istiraadaan isku xumee oo heblaayo ku xumee ama hebel ku xumee shame on you because aday kula kacaysa hadhowto caruurtaada lagaa qaadanayaa haddaa inta hebel ku xumaynaysay amna heblaayo ku xumaynaysay hooyo iyo aabbo kolba kii kale ku xumaynayo waalida aad tahay waa ku damaqaysaa markaa marka hore dadkan hadday kusoo dhex galaan ciyaarkaaga ma baxayaan markaa marka hore u fiirsada waxaa suubinaysiin dadkaa hayse soo dhexgelinina ha isugu yeedhina tolkiina iyo inaadeer iyo saaxiib iyo ciddii idin dhexgeli karta ha idin dhex gasho idinku dhexdeedna ka dhammaysta waxba ma laha calafka ilaaha keeno waa la iskursadaa waa la kala tagaa balaakiin ubad baa ilaahay idin siiyey labadiinaba oo idin dhex yaala oo aan waxba laga qaban karin marka ilmihiini inta u tabacdeen oo dhasheen oo u foolateen oo u socoteen haddana ciyaar gaala idiin siiso because hebelaa rabaa inuu ku xumeeyo ama heblaaya rabaa inuu ku xumeeyo waa wax fool xun weeyaan soomaali haddaynu nahay dhexdeennan wax kasta ka samaysan karnaa oo tol iyo naadeer iyo hebel baa laysugu wacdaa dadka u garnaqa dadka hayse soo dhexgelinina idinkuna dadkan intaa cararaysa hebel baa caruurtii laga qaatay lacagha loo ururiyo marka hore qofkaas caawinimo hadduu u baahan yahay waraysta oo idiguna qofkana haddaad caawimo u baahantahay hadal iyo caawiya dhaha dadkan caruur iskama qaataan ilaa ay sheekadu tuuley tahay taasaan rabay inay soomaali haddaynu nahay ayn fahanno wixii aqoon looma laha waa layska wada daba qaadanayaa hebel baa daris baa ugu yeeray dariska way ku wareysanayaan laakiin waxay caruur kaaga qaadanayaan ma laho hadday qalqalooc iyo daldalool kaa arkaan markaasunbay caruurtaada qaadanayaan dadkani wax inta lagu soo dacweeyey
haddii kale daris iyo ka walaaliya ka hebelba ayaa inta qofkii ku yara neebcaba intuu kuu wacaabay datan carruurta lagaa qaadan laha. It doesn't work like that. Waxaynaan fikradu lahayn bay Soomaalidu been isugu wada sheegaan. Marka ilaahay caruuraa laga haystona ha u soo fududeeyo. Idinkuna dadkan kale ayna marka hore wareysta dadka caawiya inta marka hore too late. Marka lacag iyo hebel iyo heblaayo wax ma tarayso. Dadka markasta ku dhahay oo in adeerkeed ama walaasheed walaalo lama dhalanin miya, abti lama in adeer lama dhalanin miya, maxaa ilmaheeda iyagu isugu soo wareejin waayeen. Taana it doesn't work like that. Haddii caruur kastaba inta hooyada laga qaado qof kale loo geynayo, hooyadaba lagama qaateen. Dadkan process dheer baa maraysaa, waa inaad itixaamo badan laga qaado, maxay ahaydee checking badan lagu mariyo, markaasaa qofka oo sanad ka badan hadday doonto qaadan karto. laakiin maanta ilaahay naguma keenay qof waalidka familygaaga haddii ilmo laga qaato tiraadid okay anaa haynay igu soo wareeji. It's not mention Soomaaliya ma wax lagugu soo because they don't know. Waaye gabadha waa dhalatay laakiin iyagu ma ku yaqaanaan ilmaha inaa xumeynaysa maxay ku ogyihiin. Marka waa inaa marka hore ay ku baaraan adiga ku dhaado taasoo sanad ka badan hadday doonto qaadan karto. Dadka kale la dhahayo oo maxay idinkoo wixii fahansanayn maxaa looga qaadan waaye, maxay walaal familiyada kama dhalan miya, maxaa ilmaheeda loo qaadi waaye oo gaalada loo siiyey. No, ma samayn karaan. Wadankan sharci uu leeyahay, maxay xuquuq uu leeyahay, wax iska hebel igu soo wareeji heblaayo igu soo wareeji waxeeni wadankeeni ma shaqeynayaan halkan. Soomaali haddaynu nahay taa inaynu fahanno insha Allah aynu isku dayno. Waxaa la dhihi jira marka ila iska rido meel ilaa yahay ilaa la iska ridaa. gaal loo noqon laguma laha, laakiin sharciyada wadankan haddaad ilaalinin way kula kacaysaa. Marka insha Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.